kelmadda ugu horeysa ee madaxda inala joogta aan siin doono waa dhanka xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka iyo safiirka way inoo dambeyn doonaan waxaa ugu horeyn doona xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir رئيس السودان أرجعها سجارة يفرحوا وياهي وحينا وجوه حسوستان هلقا كاجي وحبرشوا الصومالية مركي دولة الدحية الصومالية ماشي كبحي يكالك في الهجرة. دمان دتك مسؤولين تا لديك وجوه الرئيسان دمان تمن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي كواد ما هو المشن سوي استاجر. لكن مدة كم غناء فصحى إذا كقاطي. waxaan dhahay iskool kale aan galaya oo aan kii hore iskuul jirnay aanan ahayn mid hore aan iskuul jirnaa jirto Soomaa ya kii hore waa ka baxay waxaan dhahay mid kale aan galaya kii aan ku maqnay kii hadda ka soo laabtay marka makeeni hore aan ka sheekaysanaa bas kii dambe aan ka sheekaysanaa kii dambe miya okay maadaama gudoomiyaha uu joogo saaxiibadayna ay joogaan waxaan aad isku dayaa inaan aan soo koobo warkayga waxaan jeclaan lahaa maalin uusan gudoomiyaha madaxdayda maalin uusan gudoomiyaha ila joogin inaan helaan jeclaan lahaa adinka naftiina maalin saas aad jeclaan lahaydeen Soomaa ya insha Allah mar raadsan doonaa aan markaan hayna hadii ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay inaan meel ka bilaabo meelan maanta waxaan isweydiinay xagaan ka bilaabaa hadalkayga waxaan rabaa inaan ka bilaabo maxaa inagu dhacay dal baan ahay qaran baan ahay dawlad baan ahay ummad baan ahay maxaa inagu dhacay ma aha 28 Oktoobar iyo 14 Oktoobar kuwa ka sii horeeyay maxaa inagu dhacay marka la soo koobo anigu sida ila tahay oo aan fahmin waxa inagu dhacay mushkilad siyaasadeed inagu dhacay waxaanu maareyn waynay siyaasadii dalkeenaanu maareyn waynay waxa maalin bilowday maaha waxa hal qof uu mas'uul ka yahay ama hal qof ay mas'uul ka tahayna ma aha wuxuu way isii gargaareen markay isii gargaareen waxay keentay in dawladnimadeeni aan dumino oo aan ku kala tagno meeshii marba la kala tagay Soomaa oo aan la iswarsan kadib xalku muxuu yahay marka su'aal baa imaanayso maxaan kala geeyay maxaynu u burburnay waxaan akhriyay marar badan daraasada ay sameeyeen aad ugu faraxsanahay arday ka baratay jaamacada Afrika العالمية mid igu saameyn badnayd waxa ay daraasad ماجستيرا oo la yiri waa maxay محددات الأزمة السياسية في الصومال waa maxay فريمك maxaa فريم oo ah maxaa lagu xadidaa mushkiladeena siyaasadeed ee ina qabsatay waxaana taa ku qornay waxaan rajaynayaa inaad akhriseen ama ku yaalifay bay idinla joogaan in dhibka siyaasadeena Soomaaliyeed ay ku salaysan tahay ama ay sabab u tahay innaga oo iswaafajin waynay dawladnimadeena cusub ee adduunyada looga dhaqmo iyo qabiilka oo aad ogtihiin meesha uu naga gaaray midda labaad ee iyaduna taxadiga u ahay oo mushkiladeenu weegaarka u ahay waxa weeye sida diinta iyo islaamnimada iyo siyaasadda iyo dawladnimadeena cusub ay isla falgali lahayd wax ka bilowday ma ahan argagixisadan boqolka inoo dilaysa ma aha ka hor bay soo bilaabatay laakiin tan waa tii ugu qaab dareed oo ugu xumay mushkiladeena siyaasadeed waxaa kamid ah inaynu isfahamsiin waynay dawladnimadeena cusub iyo dalalka dariska noo ah oo sheeko dheer ah midda afraadna waxaa weeye inaynu isfahamsiin waynay dawladnimada cusub ee adduunka ka jirto iyo sida aan oola dhaqmayno
beesha caalamka guud ahaanta ama ha noqdeeno xilligii dagaalada qabooba ama ha noqdeeno xilligan dambe ee globalization waxa la yiraahdo ka bilowday iyo waliba nasiib darro xilli aad u adag oo hadda adduunyadu ay marayso oo adduunyadu ay ku yar tahay dad caqligu uu u taliyo laakiin danaha dad ay u taliyaan ay u badan yihiin marka waxaan rabaa oo inta aan u sheegayaa waa maxay waxa inagu dhacay waxa weeye dhibkaas siyaasadeed asbaabahaasuna leeyahay waxa kale oo dhanna waa la adeegsaday marka inta aan idin sheegayo oo dhan waxaa loo adeegsaday mushkiladeena siyaasadeed baa loo adeegsaday waa maxay xalka dadka Soomaaliyeed waxa ay soo yaqiinsadeen ay soo xaqiiqsadeen markay gunta gaareen xalku inuu ku jiro in dawladnimada Soomaaliyeed dib loo soo celiyo qabiilkaana waxba noo taraynin koox diineedana waxba noo taraynin gobolaana waxba noo taraynin dawlad shisheeyaana waxba noo taraynin baasaboor baan soo qaatay iyo dawlad Hiblaya aniga aan muwaadinkeeda ahi iyo waxba inooma tarayso waa inaynu inagu dawladnimadeena aynu soo celinaa dawladnimadii markii lagu soo laabanayay markii jidkeedii lagu soo laabanayay intii oo mushkilado oo jirayba waa jira marka marka qaar waxa kuugu daran oo kuugu walwal badan waa marka wixii cudurka ku ahaa daawo laga doono oo la yiraahdo kii naftiisi ayaa lagu daaweynayaa qofkii jirana marka la yiraahdo marka ku aad ugu nasiib daran tahay oo ugu ayaan daran tahay marka wax badan oo kamid ah waxyaabahaas ayaa waxaan ka raadinay inay daawo inoo noqdaan si aynu dawladnimadii aynu u soo celino waxaan rabaa marka maadaama dhalinyaro tihiin inaan dhowr arrimood oo kooban aan sheego midda koobaad dawladnimada dib in loo soo celiyaa waa geedi socod waa hal mar inta maalin lagu riyoodo iska dhacaya oo iska hagaagaya ma aha kow geedi socodkaas wuxuu u baahan yahay dad fikira wuxuu u baahan yahay dad shaqo qabta wuxuu u baahan yahay dad taageera wuxuu u baahan yahay dad ilaaliya nasiib darro tallaabo markii la qaadi maagaba iyo geediga la socon maagaba waxyaabihii aan sheegayo dhanna weerar bay nagu soo qaadayaan innagana dulqaad iyo adkaysi uma lihin aynu ugu dulqaadanno waxaan inuu geedi socod yahay waxa maanta noo hagaagi waayaa berri inay noo hagaagi doonaan jidka looga baxayo dhibaataduna jid dheer inuu yahay inaan dulqaadkeeda iyo dadnimadeena aynu yeelano dadkeenana aynu barno macnaha dulqaadku uu leeyahay iyo geedi socodka bas geedi socodka wuxuu u baahan yahay oo tan ugu muhiimsan ah inaynu isu tilmaano meesha loo socdo si dadka qaar aanay u daalin ama u malaynin meel soke inay tahay meesha lagu hakanayo oo aanay markaa carqaladooda iyo mushkiladooda iyo waxoodii aanay inoogu badin waxaan marna dawladnimada aynu doonayno inaynu dhisana aan laga maarmaynin inaynu soo celino midnimada dalkeena iyo dadkeena inaynu soo celino in jid kasta loo maro waddo kasta loo qaado qofka Soomaaliga maxaad ku raali tahay la yiraahdo waxa aynu isugu imaan karnaa inay wax kasta ka muhiimsan yihiin xataa mararka qaar haday u muuqdaan waxaas waxaanu wanaagsanayn inay yihiin haday u muuqdaan ilaa aan ka gaarayno meesha aynu u socono midda labaad dawladnimadeenu ma suuragali karto inta ay dad argagixisay ay nagu jiraan oo inaga boqol inoo laaynayo oo adduunyadu ay khatar ka arkayso oo wadamada dariska ay khatar ka arkayaan taa waa inaynu meel iska saarno oo aynu meel uga soo wada jeesano oo aanan marna lagu fikirin wallahi hebel baa garla iyo dulmi baa meeshan ka jiro cadaalad darra ka jirto nimankan waxaan u sameeynayaa waa dulmi meel hebel laga sameeyay ama qof hebel uu sameeyay inaanan marna aanan niyadeena aanan isdheyn waxaynu u baahannahay in raadinta xalka siyaasadeed aynu ogaano inuu jidad badan leeyahay waxaa jira jidad lagu soo lumay oo lagu soo dhibtooday oo ay kamid tahay jidka dictatoriyadda iyo in ra'yiga la isu meeriyo oo ay kamid tahay jidka dulmiga oo ay kamid tahay jidka cabsida iyo dadka qaar inay ka cabsoonayaan haddii dawladnimadu ay soo laabato
inay iyagu naftooda ama noloshooda ay khatar galayso ama dowladnimadu ay noqonayso dowladnimo ay leeyihiin dad gaar ah oo dad gaar ah ay ka faa'iidaystaan seetaa looga gudbayaa dowladnimadeenna waa inay ku dhisantaa wada hadal waa inay ku dhisantaa sharci waa inay ku dhisantaa dastuur waa inay ku dhisantaa madax la soo doortay oo dadku ay ka raali yihiin waan idiin sheegay macnaheedu ma aha geedi socodku in doorashadu tan ugu wanaagsan ma aha dastuurka kan ugu wanaagsan ma aha xeerarka aan haysanaa kuwa ugu wanaagsan ma aha laakiin haddaynu iswaafaqno oon is ogolaano horaannu jidka oogu soconaynaa wixii inaga khaldanna waynu iska bedelaynaa xataa madaxda hadday inaga khaldamaan waanu iska bedeli doonaa haddiiba aan jidkaas aan ku socono ma jecli inaan khudbad badan idiin jeediyo waxgaradaa tihiin culumaa tihiin wararka dee dalka iyo dadka ka jiran aada iyo aadaad ula socotaan laakiin dardaarankayga ugu muhiimsan waxaa weeye isbeddelku wuxuu ka bilowdaa adiga qofka uu ka bilowda xaggeed ka joogtaa danaysiga xaggeed ka joogtaa qabiilka xaggeed ka joogtaa danta qaranka xaggeed ka joogtaa isu keenidda dadka xaggeed ka joogtaa isku hayntooda iyo wadajirkooda xaggeed ka joogtaa dulqaadka haddii maanta waxaad rabta aada wayso berri ma sugi kartaa xaggeed ka joogtaa iftiiminta aragtida dheer ee dadka loo iftiimiyo ugu dambeyntiina waxaa idinka rajaynayaa cilmiga aada barataan waxa ugu muhiimsan inay noqoto in aad xalka mushkiladda aada sheegtaan mushkiladda sheegisteeda iyo ka sheekaynteeda iyo wixii dhacay iyo macno weyn kuma fadhiso taa kuwa aan aqoonta lahaynba way samayn karaan waana ku aragteen social media iyo siduu qof kasta uu u hadlayo ama qof kasta uu sawiraya waxa uu doonayo laakiin waa maxay xalka aynu mushkiladeenna ku xalinayno ugu dambeyntii waxaan mar kale u mahadcelinayaa jaamacadda afriqiya alcaalamiya dowladda suudaan shacabka suudaan oo na garab istaagay waqti aada iyo aad ee u adag aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir